isku day kale oo afgembi mid ay markan door rasmi ah ku lahaayeen madax hore oo dalkan ah iyo wadamo shisheeye ayaa habeennimadii sabtidii dhoweyd ku fashilmay gudaha caasimadda Wagadugu ee dalka Burkina Faso. inkastoo aan isku dayada dil iyo afgembi ee Captain Ibrahim Traoré ahayn kuwa maqalkoodu cusub yahay, haddana kan waxaa loogu yeeray mid ahaan afgembiyadii lagu bixiyay qorsheynta ugu sarreysa ee la doonay in ugu dambeyn talada lagu dhaafiyo Traoré, balse mar kale guul daraystay. taa oo tustay inaysan dhab ahaan fududayn xilka xoogidda hogaamiyahan ciidanka ah ee shacabiyadda badan leh. inqilaabkan fashilmay oo dhacay habeennimadii 3 bishan January waxaa hormuud u ahaa madaxweynihii ku-meel gaarka ahaa ee dalkan Paul Henri Damiba, kaasoo talada sii hayay ka hor inta uusan xukunka inqilaabin Ibrahim Traoré September 2022. Damiba oo haatan deegaan ahaan ku sugan dalka Togo ayaa warbaahinta maxalliga ah ee dalkaas iyo kuwa gobol ku tabiyeen inuu dhisay shabakad xoogan oo ka kala tirsan ciidanka waddanka iyo rayidka Burkina Faso, kuwa oo hormuud u ahaa inqilaabka fashilmay. xogtu waxa ay tabisay in xitaa dawlado shisheeye ballan qaadeen kaalmo ciidan oo cirka ah intii howlgalkani socday, waxaana qorshuhu ahaa in la bartilmaameedsado saraakiisha sare ee ciidanka iyo xubnaha u dhow Traoré oo isaga qorshuhu ahaa in la qabto sida ay xogtu tiri, sidaasna xukunka looga tuuro ninkan loogu yeero mid ahaan madaxda ugu saameynta badan guud ahaan qaaradda haatan. dawlado shisheeye oo la tuhmayo in Faransiisku ugu horeeyo oo doonistoodu tahay dib ugu noqoshada dalalka galbeedka Afrika ee waagan curyaamiyay doonisaha Paris ayaa lagu warramay inay hormuud u ahaayeen howlgalka natiijo la'aanta mar kale ku dhammaaday. ogow ma aha kan inqilaabkii koowaad ee galbeedku isku dayeen inay talada ku dhaafiyaan Ibrahim. in ku dhow 20 isku day oo kale ayaa sidan oo kale curyaamay, midaasoo muujinaysa in rayidka waddankan iyo ciidamaduba ku baraarugeen doonisaha sirgaxan deganaansho la'aanta uu dhaxalkoodu yahay ee galbeedku ka damacsan yahay Afrikada ay doonayaan inaysan horay hooskooda uga bixin. fashilinta afgembigan ayaa sida la wariyay ku bilaabatay macluumaadka sugan ee laamaha amniga gaar ahaan militariga waddanku ka heleen abaabulkiisa. shakhsiyaadka ku howlanaa ee isugu jiray saraakiisha ciidan iyo xubno shacab ah ayaana gacanta lagu dhigay ka hor inta aysan bilaabin afgembiga, midaa oo sahashay inuu si dhaqso lahayd u fashilmo dhaqdhaqaaqan oo waqti dheer la qorsheynayay sida aynu ka xiganay TV-ga la yiraahdo C360. afgembigan fashilmay ka hor inta uusan bilaabanba waxaa xigtay dibadbaxyo lagu taageerayo madaxweyne Traoré oo isla habeennimadii sabtida magaalada Wagadugu ka bilaabmay, kuwa oo ay bilaabeen boqolaal ka tirsan dhalinyarada sida weyn u taageerta Traoré ee lagu magacaabo Wayignanis. dibadbaxyadaas oo ay wadeen ilaa maalintii xigtay waxa ay hareeyeen caasimadda Wagadugu iyo meelo kale oo dalka ah, kuwa oo si weyn loogaga soo horjeensaday isku dayada afgembi ee dalkan joogtada ka noqday, doonistooduna tahay taloka turista Traoré. docda kalena ujeedadoodu tahay in galbeedkii dalkani hooskooda ka baxay dib u hantaan Burkina Faso.